السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله قدمانت والسلامية الله السلامية للدنيا آخرة لما أنت واحد ليه وقت قيمة أنت ساعد هايدين وناكسناته وولاشين ومقالد وهرقب أنت كود عيد شوق ده بلواي إلهي كورونا عذر كيسة بنقول مرة لكن كلو انشردا اسكسعتها واباي واسعتها إلهي ما كم جنجلينا نجي أنت إسلام بقى لما أنت waxaan leeyahay waqtigu haydin wanaagsanaato Soomaali intii dhimatay oo maantay god gashayna Ilaahay ha u naxariisto dhamaantood kuwa qaraxyada ku baaba'ay iyo kuwa darxumada ku baaba'ay iyo kuwa badaha ku dhamaanay dhamaantood waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ka dulqaado Ilaahay ha ka dulqaado isaga qaadir oo raxmaan waa cudur dadku cudur bay iska daaweynaa anagu waxaan iska daaweynaa masaa'ib wadanka yagii ka socotaan iska daaweyn la'aanahay إلهي سبحانه وتعالى هنون حريست ميلان شوقنا بدمان تيمبا ولا ليال وحول بق وحوي مالن بي وحوي دونك وهير بهير بوتاغي إلهي سبحانه وتعالى وحدب يدبعت الله نجا قبطه دمان تيمبا ما أنت جبر جروب كقرآن كان نقول شرطان نوشة كيسوي ما أنت دنبان أكو قسلاي مركزا وحير بالولا لها أرنتان واحد عكرتها معناها لقيبسو waxay leedahay wadamadii intaasoo sano loo taariibay ama loo sii socday maanta in laga soo taariibo oo laga soo noqdo ayay taagan tahay Yurub oo dhan bay tiri waxa way qaxeen oo qabowgii markii la yiri lama hayo bahalkii qabowgiina waa soo socda shidaal idinku filan ma leh ayay Afrika u carareen bay dhaheen Afrika ay carareen wallahi waxay tiri gabadha hadda anagu wax xiran in Afrika u cararnaa rabna Afrikana waxaa la yiri dadkii Yurubiyaanki oo dhan bay soo talxiilaysaa oo soo cayrinaysaa war waxa taas ay war ma wax dhici kara wallahi way iga qoslaysa gabadhaas waxay tiri wallahi way soo talxiilayaan Afrikaankii waa talxiilayo waxay leeyihiin hanoo imaanina sharkiina iyo shidadiina iyo kuleylkiina iyo dibtiina hanoo imaanina qabow baa ka socdeen ma anaga nagu soo goosanaysaa noo imaanaysaa marka waa arrin la yaab leh hadda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa weeye aadami uma abuureen mar walba in macal usrin yusran baa la yiri waxa laga yaabaa inay tahay maanta dadka Afrikada madoobayda la gumaysan jiro la baabiin jiray inay maanta sida khayr u tahay baa laga yaabaayo intii qoladaan isku baaba'aan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyaga inuu halka uga furo inuu uga furo sida iyaguba u gali jireen ay u galaan inkastoo iyagu dadka soo dhaweyn jireen ay dadka soo dhaweyn jireen oo aruurin jireen oo dadka wanaajin jireen haddana waxa weeye Ilaahay dib oo dhan ugu maridaan